daawadayaal waad salaamantiin meel kastoo aad joogtaan wafdi ka socda golaha heer qaran ee isku duwidda abaabulka dadweynaha ee dhismaha mashruuca biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya ayaa booqasho qiimeyn ku soo maray dhismaha mashruucaas ee socda waxa faafaanta warkaasna soo jeedinaya maxamed maxamuud biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya ee dhammaan shacabka Itoobiya sugayaan natiijada ka soo baxaysa wuxuu yeelan doonaa joog dhan 145 mitir wuxuuna qaadi doonaa biyo dhan 360 bilyan oo cubic meter oo biyo ah waxaana boqolkiiba 90 la soo dhameystiray guryihii ay degi lahaayeen shaqaalaha mashruucaasi ka shaqeynaya sidoo kalena waxa la dhameystiray wadooyinkii goobtaasi mashruuca lagu gaadhayay maareeyaha mashruucaasi weyn ee biyo xidheenka dib u curashada Itoobiya engineer Simanyo oo waraysi siiyay hay'adda raadiyaha iyo telefishinka Itoobiya ayaa tilmaamay in 27,000 ee metric tan ee biraha oo dhismahaasi mashruucaasi u baahan yahay 7,000 oo tan oo kamid ah goobtii mashruucaasi la soo gaarsiiyay haddaba wafdi ka socda golaha isku duwidda hawlaha dhisidda ee biyo xidheenka weyn ayaa booqasho qiimeyn ah ku soo maray hawlaha socda ee mashruucaasi wafdigaasi waxaa horkacayay wasiirka xiriirka arrimaha dawladda ahna xogayaha golaha mudane Baraka Simon waxa kale wafdigani ka jiray xubnaha golaha hogaamiyaasha diimaha maalqabeennada iyo wakiilada ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka mudane Baraka ayaana booqashadaasi wafdiga ka dib sheegay in hawsha dhismaha mashruucaasi ay u socoto jadwalkii loogu talagalay kulliyadda civil service ka ayaa kortay heer jaamacadeed ardayda 811 ayaa kaga qalin jabiyay shahaadooyinka heerka digriga labaad iyo digriga koowaad waxa faafaanta ka soo jeedinaya mar kale maxamed maxamuud jaamacadda civil service-ka Itoobiya waxa ka qalin jabisay ardaydan 811 arday oo ah heer degree iyo waxbarashada masterka ee ah waxbarashada digriga labaad ardaydaasi qalin jabisayna 114 kamidii ay ahaayeen ardayda haweenka ah madaxa jaamacadda Dr. Haile Mikael Abarra halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaana sheegay in jaamacaddu ka socoto hawlaha cilmi baarista oo kamid ah dadaalka ay wado jaamacaddu inta ka sokaysa ardayda shaqaalaha dawladda ee sanad walba ka qalin jabisa jaamacadda waxaana shahaadadaasi digriga halkaasi ku guddoonsiiyay ardaydii qalin jabisay wasiirka wasaaradda civil service-ka mudane Junadin Sado haddaba ardaydaasi ka qalin jabisay jaamacadda civil service-ka Itoobiya waxa kamid ahaa 13 arday oo u dhalatay deegaanka Soomaalida oo ku qalin jabiyay heer master iyo heer PhD degree أحمد شكري عبدي أو هالكاسي كذا هذليا درين كيس فرحات. runtii shucuurtayda ku wajahan qalinjabinta sida macnaha waxaan ku tilmaamo maanta ma qiyaas karo sababtoo ah maanta xafladan qalinjabinta maanta macnaha u dabaaldegayna waa xafladii hore kaga duwan saddex waxyaabo baa leh saddexda waxyaabo markaan naano qaybta koowaad haddaan ka hadlo waqtigan xaadirkaas aan wada ognahay dalkeena wuxuu galay waqti macnaha qorshe lagu dejiyay GTB ama qorshihii Growth and Transformation Plan-ka taasoo macnaha fursad loo siinaysa inaan أنا دفعتي رولك مهم كعيار رايد طلبات عندنا يجوا ديان كين وقت غير حاجة يسوي وصول هاي وحكب الله مدي وعرش كواحنا مثلا هاي معناها أنا فرحت قارة يصير يسدي وقت غير حاجة قلنا جبتي يدين يجوا عرش هذا يسكسر بينتي تصدعات وحيان يقدر واحد هاي ومن هو الرئيس معناها ما دفعتي هو الرئيس معناها هير يونيفرسيتي from college to university معناها كقلنا جبيه ardaydii halkaasi ka qalin jabisay waxa ay taageeraha dhinacooda ay dhinaca horumarka ku taageerayaan waxa ay ku muujiyeen 10,000 oo bir oo ay ku taageereen dhismaha biyo xidheenka dib u curashada Itoobiya iyagoo ka jaray lacagtii ay ugu talagaleen in ay ku daabacdaan majallaadka qalin jabinta jaamacadda civil service-ka Itoobiya waxa ay soo gabagabaysay diyaar garowgii dadaalka ay ku hirgelin lahayd qorshaha sanadka dambe in ay laba qaybood oo waxbarashada heer degree ah ay ku soo biiriso jaamacadda dadweynaha ku nool magaalada Jigjiga ayaa sheegay inay ka soo baxayaan kaalinta kaga aadan dadaalka loogu jiro dadejinta koritaanka iyo horumarinta magaaladaasi Jigjiga waxayna soo jeediyeen in xal loo raadiyo dhibaatooyin ay sheegeen inay ka jiraan qaar ka mid ah xafiisyada adeeg bixinta dadweynaha magaalada ayaa maalintii shalay ahayd maamulka madaxda magaalada Jigjiga la yeeshay wadahadal ku saabsan horumarinta iyo hawlaha magaaladaasi
waxaa goobtaasi laga soo jeediyey in dhismaha guryaha wadajirka ah ama kuwa loo yaqaano condominiumka iyo wadooyinka gudaha lagu dhisayo dhagaxa loo yaqaano cobel ay yihiin hawlo wanaagsan oo in lasii xoojiyo u baahan. dadweynuhu waxay dhibaatooyin ka sheegteen xafiiska adeega biyaha iyo isbitaalka magaalada Jigjiga. duqa magaalada Jigjiga injineer Guuleed ayaa sabab dhankiisa ka sheegay inuu maamulku ku dadaali doono xal u raadinta dhibaatooyinkaas ay dadweynuhu tilmaameen. waxaa wadahadalkan ka soo qayb galay dadweynuhu ka badan 2,000 oo kala yimid 10 xaafadood ee magaalada Jigjiga ka kooban tahay. warbixin ka soo baxday ururka midowga Afrika ayaa sheegtay in dhakhaatiirta AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya Muqdisho ay ka wadaan hawlo gurmada oo dhinaca caafimaadka oo ay ku gargaarayaan dadka barakacay. waxaa soo jeedinaya Maxamed Shariif. war-saxaafadeed uu maanta soo saaray ururka midowga Afrika ayaa lagu sheegay in dhakhaatiir ka socota hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee dalkaasi Soomaaliya ay bilaabeen caawimaad dhanka caafimaadka si loo xakameeyo cudurka jadeecada oo ka dilaacay xero qaxooti ay ku soo barakaceen qaxootiga Soomaalida ay saameysay abaarta baan ee ka jirta dalkaasi Soomaaliya. xeradan qaxootiga oo ku taala agagaarka garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa mid ay ku nool yihiin qaxooti ay tiradoodu dhan tahay 700 inkastoo tiradaasi ay tahay mid soo kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa. waxa ayna xerayni tahay mid ay ku nool yihiin carruur aad u tiro badan oo ay ka muuqato nafaqadaro zaid ah kuwaas oo qaarkood ka yimaadeen meel ay ku qaadatay 5 maalmood si ay u soo gaaraan xaruntan ay u yimaadeen si ay u helaan cunto ay cunaan. xeradan qaxootiga ah ayaa waxa kale oo ka jira cudurrada ka dhashay nadaafad darrada sida cudurka shubanka iyo cudurka malaariyada waxaana xaaladda nololeed ee xeradan qaxootiga ka jirtay si xumeeyay oo dhawaan ka dhacay caasimadda dalkaasi Soomaaliya. madaxa waaxda iskaashiga shacabka iyo militariga ee hawlgalka AMISOM Lieutenant Colonel Kamaruri ayaa sheegay in kastoo ay haystaan saatireer haddana in ay sameynayaan dadaal aad u sareeya si ay u dhimaan dhibaatada baan ee ka dhalatay abaarta ku dhufatay dalkaasi Soomaaliya oo ah abaartii ugu baaneed ee ka dhacday dalkaasi Soomaaliya nus qarnigii tagay taasi oo saameysay tirada oo dhan 3 milyan oo qof oo ay soo wajahday macluul aad u baahan. Lieutenant Colonel Kamaruri ayaa u baaqay hay'adaha deeqda bixiya caalamka inay si degdeg ah u soo gaaraan bulshada abaaruhu ay saameeyeen dalkaasi Soomaaliya si looga hortago inay dhacdo masiibo ku habsata bulshada dalkaasi. dowladda Ingiriiska ayaa ku ballan qaaday in dadka abaaruhu ay saameeyeen ama waxyeeleeyeen ee gobolka Geeska Afrika ay ugu deeqi doonto lacag gargaar oo dhan 250 milyan oo ginniga Ingiriiska ah. wakaaladda wararka Ethiopia oo soo xigatay BBC ayaa sheegtay in wasiirka horumarinta caalamiga ee dowladda Ingiriiska uu ku dhawaaqay in dowladda Ingiriisku lacag dhan 250.25 milyan oo ginniga Ingiriiska ay ugu deeqi doonto gargaarka gurmadka ee loo fidinayo malaayiin qof oo reer Soomaali ah oo abaaruhu saameeyeen ku kala nool dalka Ethiopia iyo Kenya. wasiirka mujtamaca adduunka ugu baaqay in dadka abaaraysan si degdeg ah loogu gurmado ayaa intaas raaciyay in xaaladda Soomaaliya ka jirta ay mid aad u baahan tahay oo maalin walba muwaadiniin reer Soomaali ah oo abaaruhu saameeyeen oo tiradu dhan tahay ilaa 3,000 ay u soo gudbaan dhinaca Ethiopia iyo dalkaasi Kenya. daawadayaal warkeena caawa TV intaas ku dhan yahay saasiyo habeen wanaagsan.